waxay u gaajoonaysaa inaad dheregto, waxay u daalaysaa inaad nasato, waxay hooyo u ooyeysaa u ciilkaambinaysaa in aad faraxdo adiga. Video iyo sawir la keenay oo internet iyo Facebook lagu soo tuuray, ha ka qaadanin diintaada. taas diin ma aha, ha ka qaadanin diintaada halkaa. Facebook yaanu diin kuu noqonin, Google yaanu diin kuu noqonin, bal diintan wanaagsan islaamka ka qaada, kitaabadiisa ka qaada oo culimadiisa warasatul anbiyaa ka qaada. kuwa rabbaaniyiinta wax ka badan ma laha caalamkee, luqad walbay ku hadlayaan, luqadaadii hooyay ku hadlayaan. ka qaado culimada dhexdhexaadka maanta haysaa. ilaahu ixsaanka ha ka dhuminin hooyo, inta hooyooyina ixsaankaa sameeya ilaahu ha ka dhuminin. sidaasaa la doonayaa jaarka inuu ahaado, jaarka in lagu nama si ahe ogow. يا وواحد جند اللي قال لي حدنا لكن أنا واسكو عيناه واسبسيني كي وضد قشن كقاضي وحاقي ونظيفني واسبسيني شغال اسبسيني. رسولك حل كينا كلية ما هي صلوات الله والسلام عليه أنك كلية أرنتين محلية حيوانك حتى وياه محي حلب وياه صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكر المؤمنين تأيليهين كوا اللي نبي قود الرميسان مالك قيام الرميسان oo qalbiyadoodu ay ku xasilayaan waa maxay dhikriga ilaahay. alaa bidikri noqdo adduunkan aad ka tagtid adigoo raali laga yahay, mar allaaliyo markaad tagtid aakhirana jannadii hore aad ka geshid miyaadan rabin ilaa tigidkaaga waad wada tahay. ku salliga rasuulka waa tigidkii aad ku geli lahayd jannada. ku salli maanta uu u baahan yahay caalamkan waa midda kaliya, dhaqanka kaliya ee caalamka maanta xal u ah oo nacaybka iyo dagaalada iyo fakhriga iyo kala tagga irdowga qaxa maanta jira diinta kaliya xallin karaysa weeyaan. wallahi haddaan si dhib u qaado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. أما بعد، إخوة الأعزاء، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ليال سلام ديرهن وقالي هكذب عاوة مدرسة وحيدوني سائنة إسدول تاكتو إسلام كه يوه مراقبة إلهي إلالة إلهي. ولا ليال سيداد لسعوتان إذيلكين إلهي مركي وإنا أبوري إنو غمتغين قعنان، bal wuxuu noo soo dejiyey dastuurkan qiimiga badan ee qaaliga ah ee la yiraahdo islaamka uu noo soo dejiyey ayaa wax walba oo baahideena ahna ay maaragtay ilaahay uu dhex dhigay oo ay ku taalaa. waxaa kamid ah waxyaabaha dastuurkan ilaahay uu wadeeca dhigay ee uu dhexdiisa dhigay riqaabada ilaahay inuu ina eegayo, inuu xaaladeena la socdo. riqaabada ilaahayna waxaa ka mid ah jirkeena ka mid ah, jirkeenan ayuu ilaahay ka yeeshay kamera ina ilaalinaysa, bal video wax duubaya. walaalayaal xubnahan ku adeegta ayaa la yiri, laakiin haddana iska ilaaliya, way ku ilaalinayaan. waa bodyguard, xaaladaadoo dhan bay ilaalinayaan. maqaarkan ayaa ku ilaalinaya guud ahaan, oo maqaarkan ayaa ku duubaya wax walbo ishu qabato wuu duubaya, wax walbo dheguhu maqlaan oo aad dhageysatid, wax walbo qalbigaaga aad gelisid, wax walbo gacmahaagu qabtaan, wax walbo lugahaagu qabtaan, af iyo adinba waxa weeyaan way ku ilaalinayaan. ilaahay baa aayaadkiisa inoogu sheegaya, idiilkiina waad wada garanaysaan. bal gacmihii baa gooni ahaan u hadlaaya, lugihii baa markhaati furaaya. eeg ilaahay wuxuu korkeena yeelay haddana xaafidiin malaa'ig jirkeenii ka baxsan,
xubin walbo jirkeena ah wayna ilaalinaysaa waxa inta dheer in ilaahay malaa'ig hadana garbihii maarta uu noo saaray aynan arkeenin aan nafaaruqaynin oo wax walba af iyo adin aynu qabanno qoraya marka annaga eegi mayno waxa oo dhan iska ilaalin mayno ishii dhegtii maqaarkii gacmihii lugihii iska ilaalin mayno bal malaa'igihii aan ayna faaruqaynin iska ilaalin mayno ilaaha haddana ina og xaaladeena la socda iska ilaalin mayno yaan iska ilaalinaa insaan gaafil ah daciif ah ayaan iska ilaalinaa allahu akbar eeg xaaladeena daniga ah fiiri xaaladeenu siday u xumaatay fiiri siduu ibliis inoo maamulayo fiiri caqligeenii buu dhex fariistay ibliis uurkeenii buu galay ibliis nafsadeenii buu galay isagaa ina maamulaya ilaahay waa ka u dhahayo yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allahi wa huwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl insaanka ayay iska qarinayaan marka ay wax maleegayaan marka ay wax xamanayaan marka ay wax dilayaan wax dhacayaan wax caynayaan xumaan la imanayaan dembi galayaan gefaf samaynayaan fuxshi iyo zina iyo balaayo iyo been insaanka iska ilaalinayaan iska ilaalin mayaan ilaahii ilaalinayay oo aan marnaba faaruqaynin iska ilaalin maayaan war insaan haddii uu ku arko muxuu kaa qaadi karaa waxa weeyaan insaan waxba kaama qaadi karaya insaanka marka waxaa u wanaagsan insaan ghayrkii ah inaanu ka cabsanin inaanu iska qarinin in ilaahay uu ka cabsado ilaahay inuu iska ilaaliyo ogaado inuu ilaahay maciisa yahay ogaado in xubnahan waxaan ay qorayaan oo ay sajilayaan oo ay duubayaan oo ay qiyaamahana ku markhaati kacayaan walaalayaal muraaqabada ilaahay shay aad iyo aad cajiib u ah weeyaan in lagu noolaadana loo baahan yahay muraaqabada ilaahay ilaalada ilaahay inaan ku noolaano in aan nolosheena gelino xaalad walbo aynu ku sugannahayna inay inala joogto uurkeena in ay ku jirto walaalayaal ilaahay waa ka u dhahayo walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu maa tuwaswisu bihi nafsuhu wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid annagaa insaanka abuurnay ilaahay baa dhahaya annagaa insaanka abuurnay subxaanahu watacaala annagaa abuurnay waana ognahay uurkiisa waxa ka guuxayo nafsadiisa waxa ay ku sheekaysanayso waswaaska yar ee ku jira wuxuu xadiisu nafsiga ah ku jira waanu naqaanaa halka xablul wariidka halbowlaha waan uga dhownahay ilaahay nagama dheero walaalayaal wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qariibun ujiibu da'wata ad-da'i idha da'an waa u dhowahay ayuu leeyahay ilaahay cilmigiisu ilaahay noogu dhow yahay ilaahay cilmigiisa ayuu noogu dhow daatadiisa waa sareysaa alle subxaanahu wa tacaala ilaahay cilmigiisa iyo ogaantiisa ayuu noogu dhow yahay walaalayaal oo uuna marnaba nafaaruqin uma baahna xataa inuu xubnaha ka hadashiyo uu ilaalo naga noqdaan malaa'iga inuu soo dirsado isagaan marnaba nafaaruqaynin aad buu noo karaameeyey walaalayaal maxaa wacay wuxuu uurkeena dhex dhigay waxa la yiraahdaa qalbi oo qaali ah qiimi badan ayuu dhex dhigay oo aan xayawaanka aan uga duwannahay marka qalbiga inaan ka shaqaysiinaa loo baahan yahay caqliga inaan ka shaqaysiinaa la doonayaa oo aan ogaano in adduunkan layna eegayo cidlo inaynaan ahayn dadkana inaanay waxba naga qaadi karin dadka inaanay nolosheena waxba kulahayn aynaan u baahnayn bal waxa aynu u baahannahay inaynu iska qarinaa uu yahay alle subxaanahu wa tacaala walaalayaal waa ka aayad kale uu ku dhahayo yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukhfi suduur allahu akbar ilaahay waa og yahay isha khaa'imada ah wax dagaysa wax maleegaysa xumi iyo gef iyo balaayo iyo baas abuuraysa ilaahay waa ogsoon yahay wuu garanayaa alle qalbiyada waxa ku jiraan ilaahay waa ogsoon yahay
kor iyo hoos ayuu ilaahay inoo garanayaa walaalayaal. maxaa waay isagaana abuuray qofka marka uu rabo inuu wax sameeyo adigu waxaad ogaanaysaa marka arinta ay ka soo gaado ba adiga qudhaada ogaan kartaa waxa aad sameynaysid. laakiin ilaahay wuxuu og yahay adiga inta aadan ogaanin waxa aad sameynaysid inta aadan ku sheekaysanin horteed ayuu ilaahay sii garanayay. Allahu akbar. ilaahaasa marka la doonayaa in aan iska ilaalino walaalayaal, in aynu ogaano inuu ilaahay inala socdo oo aan gacmaheena af iyo adinba aan ilaalino, ilaahay aynu weynayno walaalayaal. waata aayad kale uu ku leeyahay alle haddana subxaanah, wa kaana allahu calaa kulli shayin raqiiba. shay walba dushiisa waxaa bodyguard ah oo ilaalinaya, la socdo, ogsoon. allah raqiib ah oo ilaalinaya. waa shay walba ilaahay wuxuu ogsoon yahay. quraanjada inta badan dhawaaqeeda lama maqlo, shaqarteeda iyo socodkeeda lama maqlo, bal toddobada dhul hoosteeda quraanjada ku jirtaa, toddobada dhul hoosteeda quraanjada ku jirtaa oo weliba habeen mugdi ah socotaa, yaa awood u leh oo maqli karoonan ilaahay ahayn. ilaahay taasuu la socdaa xaaladeeda oo uu dhawaaqeeda maqlaya alle subxaanahu wa tacaala, wuu ilaalinaya iyada. xataa ilaahay waxa walaal ka hoos bixi karaya haba yaraatee ma laha. maxaa waay aayad kale ku leeyahay, wa huwa macakum aynamaa kuntum. meel walbo aad joogtaan ilaahay waa maciina. dadka aayaddan markaan runtii soo xusuusto inta badan waxaa igu soo dhaca dhalinyaradeenna. ilaahay ha barakeeyo dhalinyarada, allah badbaadiye meel walbo ay joogaan. dhalinyaradan ka dhuumanaya waalidiinta, ka cararaya, ka dhuumanaya waalidka markay la joogaanna mu'miniinta ah oo wanaagsan, laakiin marka ay baxayaanna waxa waay xaalad kale ku baxaya oo laba wajiilayaalka ah. gabdhaha gurigooda markay joogaanna mu'minaadka ah, qaanitaadka ah ee xifdisan, oo xijaabkoodii ku xifdisan, markay baxayaanna laga yaabo inay ku baxaan xijaabkooda, laakiin marka ay baxaan boorsada gelinaya, iska bedelaya, oo haddana dharkii jiiniskii hoos ku jiray, goonadii gaabneed ee hoosta ku jirtay la soo baxaya, oo guriga banaankiisana ku jooga, wejiga gurigana xijaabka ku jooga. gabadha maxaa keenay in ay laba weji samaysato oo wejina ay ku joogto gurigeeda, weji kalena ay banaanka ku joogto? caashaan keliya waxaa raqiib u ah gabadha, waxaa xafiid u ah, waxaa shahiid u ah, waxay uun iska ilaalinaysaa waa waalidka guriga jooga oo ay agtooda isku xijaabayso. laakiin gabadha waxaa ka maqan, uurkeeda ka maran, waxaa ka maran aayadda dhahaysa wa huwa macakum aynamaa kuntum. ilaahay meel walbo idinla jooga wuu idin arkaa. wa kaana allahu calaa kulli shayin raqiiba. shay walba ilaahay baa raqiib ah. gabadha uurkeeda marka riqaabadii ilaahay, muraaqabadii ilaahay ayaa ka maqan. la soco, muraaqabadana waa min asaasiyaadka diinteena weeyaan, waa shay caqadi ah weeyaan. wax la doonayo qof walba, nafsad walba in lagu ababiyo, in ay ogaato. ma aha insaanku, ma aha inuu askar iyo booliis uu ka cabsado, ma aha insaan kale inaad ka cabsatid, ma aha gacan kaloo kaa xoog weyn inaad ka baqdid, ma aha. waxaad ka baqaysaa ha ahaadaana sharciga alle subxaanahu wa tacaala. in badan waxaad garanaysaa walaalayaal, dadkeenu in ay yihiin dad maadi ah, maadiyaal in ay yihiin. waxaad ku garanaysaa inay maadiyaal yihiin. u fiirsada, ideelkiina waad wada garanaysaane, u fiirsada dadka. insaanka wuxuu iska ilaaliyaa, khaasatan dadka dibadda tegey, waxay iska ilaaliyaan qaanuunka hadba dhulka ay joogaan, aad iyo aad bay u dhowraan oo ay u ilaaliyaan. gawaarida markay wadayaan waxa weeyaan kaamerooyinkaasaa laga wada baqaayaa. baabuurta booliiskee socda ee dadka ku dhex jiray ka baqaayaan. lagama yaabo meel hadha isbiidkeedu uu xadidan yahay 50, 60, 70, 100 uu yahay in ay gudbaan oo ay isbiid intaa ka badan, xawaare intaa ka badan inay ku maraan, marnaba lagama yaabo. maxaa wacay? waxa weeyaan waa la ganaaxayaa. kaameradii baa sawiray soo qabanaya, biil baa loo keenayaa, soo ma garan, waa la kululeynayaa xoogaha.
maalin walba intee calaacasha xataa haddii gef uu noqdo oo si khalada adigoona ogeen aad ku martid oo aad geftid waxba laguma cafinaya camera kuma cafinaysa waa lagaa gooynaya marka ciqaabtii fududayd ciqaabtii degdega ahayd ee dhoweyd ee adduunyo ee ay samaysteen reer adduunyo ayaa dadkeenu ka baqayaa waxa waay idaylkood waxaa la baray edabtii ayaa la baray waxa weeyaan siday u ilaalinayaan qaanuunka dhulalka ay joogaan waad yaabaysaa markaad weydiisid ruwaa maxayniyo gaariga xoog u kaxeeya maye kameradaasaan ka baqayaa buu leeyahay ogo wadada keligii baa saaran dhinaca iyo dhinaca afarta jiha isaga maahane qof kaloo jooga male meeshu waa cidla magaalo dhexdeed miya maye ee waa dhul cidla ah weyn waa dhul beero ah laakiin nalalkii wixii ay ku yaalaan wax socdaana ma laha laakiin ma gudbi karaa maya waa iska taagan yahay si walba ha u daahsanaada waa taagan yahay war maad socotid ya nalalkan waxaa loo sameeyey inaadan khalad gelin oo aadan gaari kale ku dhicin ama aadan qof jiirin laakiin meeshaan wax dhibaato aad geysanaysid ma laha ma iska gudubtid maya waan baqayaa wuxuu ka baqayaa qaanuunkaa ciqaabayuu ka baqayaa dadkeena marka waxay ilowsan yihiin waxa weeyaan qaanuunkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay qaanuunkan qaanuun ka adag buu leeyahay qaanuunka ilaahayna la soco waa ka adag yahay qaanuunkan adduunka warkan adduunya waa lagaa bixinayaa ya inaad ka baxsatid kamerada laga yaabaa inaanay ku arkin baa laga yaabaa ilaa waa qolof insaan sameeyey waxaa laga yaabaa in haddii lagu ganaaxa aad lacag haysatid lacagtan iyaga unbaa ku siinaya iyagii unbaa haddana u celinaysaa walaal baa kaa bixinaya qaraabaa kaa bixinaya asxaabaa kaa bixinaysa adduunkan waa lagaa bixinaa laakiin dadkeenu waxay ilowsan yihiin ciqaabta ilaahay subxaanahu wa tacaala in ay ka daran tahay kana adag tahay midda adduunyo haddii insaanka oo dhan uu isugu kaa tago inuu ciqaabtaa kaa caawiyo ya oo uu kaa fududeeyo kaama fududayn karaan ilaahay agtiin kaagama fududayn karaayaan ilaa ilaahay wuxuu qoray maahane soo ma garan adduunka oo dhan waxa saaran kan waxaa yara lagaa qaadayaa daraahim macduuda dollar yar ayaa lagaa qaadayaa ya ginee yar ayaa lagaa qaadayaa corona yar ayaa lagaa qaadayaa laakiin tan aakhiro haddii ciqaab adduunkan aad mudatid oo aadan ka toobad keenin ilaahay iska ilaalinin weyneynin adduunka waxa saaran ya oo aad sidaa ku dhimatid adduunkan iyo waxa saaran haddii aad ilaahay u geysid maba heli kartide ya lagaama yeelayo lagaama qaadayo isma gargaari kartid mana lagu gargaarayo maalinka qiyaama dadkeena waxaa siraya ilaahay cafiskiisa iyo ilaahay naxariistiisa iyo ciqaabta uu ilaahay dib kaaga dhigay ayaa maaragtay insaanka siraya dadkeenana siraya rasuulku wuxuu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi ina allaha yumhil walaa yuhmil ilaahay wuu kortaa wuu ku sugayaa bal inaad soo laabatid inaad caqliga mar un aad noolaysiisid oo aad soo laabatid laakiin ilaahay ma halmaansane waa la qorayaa ilaahay waa ka haddana aayad kale ku dhahaya waclamuu ana allaha yaclamu maa fii anfusikum faxdaruuh nafsadaha waxa idinkugu jira nafsadaha uurka waxaad ku haysataan ee khalaa'iqda kale ayaan ogeen ilaahay waa ogsoon yahay war iska ilaaliya ilaahay ha u malaynina ilaahay inaanu idin ogeyn hadalkiinaan aanu ogeyn xantiina aanu ogeyn isku dirdirkiina aanu ogeyn nifaaqiina aanu ogeyn salaada aad ka tegaysaan ilaahay inaanu ogeyn colka aad abuuraysaan ilaahay inaanu ogeyn qatiicu raximka iyo salatu raximka qaraabada aad goynaysaan ilaahay inaanu ogeyn marna waxa u malaynina war ilaahay iska ilaaliya ciqaabtiisana iska ilaaliya alam yaclam biana allaha yaraa miyaanu ogeyn insaanka ilaahay inuu arkayo kaa raximka goynaya qaraabada goynaya ya walaalihii goynaya aanan la hadlaynin u xanaaqsan bal u maleegaya dhagarta iyo makriga u maleegaya ya alam yaclam biana allaha yaraa miyaanu ogeyn ilaahay in uu arkayo ya ilaahay inuu arkayo miyaanu ogeyn walaalayaal ila dhegaysta qisadan cajiibka ah oo ay ku sugan tahay riqaabada ilaahay idaylkeed qisadana waxay ku sugan tahay saxiixaynka bukhaari iyo muslim ayaa werinaya saddex nin ayaa safar galay meel dhexe markay marayaan ayaa waxaa ku yimid roob
god ku yiilay buur dhexdii ayay galeen inay kaga asheeraan roobka. buurtii ay ku jireen ayaa korkeeda waxaa ka yimid dhagax aad u weyn. dhagaxii baa siduu u soo gadgadoomayay wuxuu daboolay godkii afaafkii laga gelayay hogga godka ama looga bixi lahaa iridii ayuu ka awday. meelay ka baxaan male, meeshii waa mugdi, waana maalin ogow, laakiin wax ay arkayaan haba yaraatee ma laha, si ay u baxaanna ma laha. dadka iyaga ahaa saad badanna ma sitaan. markaasaa la yidhi maxaan samaynaa? talaa ku caddaatay, maxaan samaynaa? dad cuqaalay ahaayeen. waxa kanna waxay dhacayaan waa maxay? qisadanna waa ummadihii naga horreeyey weeyaan. cuqaal ayay ahaayeen oo waxay yidhaaheen niman yahow ilaahay wuu ina arkaa, maanta insaan noo gargaari karaaya ma laha. eeg riqaabada ilaahay, insaan maanta inta naga bixin karaaya male, dhagaxanna wax qaadi karaaya haba yaraatee male, xataa dhawaqeena cid maqlaysaa male. meeshu waa cidla ayri go-an duur cidla ah weeyaan. marka maanta waxa noo dhow oo khalaa'iqda oo dhan, ehelkeeni, qaraabadeeni, xukuumadeeni, waxa nooga dhow maanta waa alle subxaanahu wa tacaala. nimankaa waxay qirsan yihiin maanta ilaahay inuu wax walba uga dhow yahay, awoodna leeyahay ilaahay. waa sida la rabo in aan rumayno annaga oo dhan. taas weeyaan riqaabada ilaahay. marka waxay yidhaaheen qof walba camalkii ilaahay dartii uu u sameeyey. ilaa acmaasha aynu samaynaa in badan khalaa'iq baa iska leh. ibliis baa nasiib ku leh. istustus iyo riyaa iyo sumcad raadis, hunguri raadis, ha lagaa sheego, ha lagugu ammaano, jaga ha lagugu saaro, sunuud yar aad ku heshid. waxaasa inta badan dadkeenu camalka u sameeyaa. oo ibliis baa acmaasheenii ku ciyaara oo qasoo madoobeeyo ma aragtaay. marka qof walba camalka uu isleeyahay camalkaas ilaahay dartii baad u samaysay. insaan waxba kuma laha, ibliisna waxba kuma laha, ilaahay dartii ayaad u samaysay. qof walba camalka sidaa uu isleeyahay ha keeno oo ilaahay ha ku baryo. aad ula socdo. qof walba camalka uu isleeyahay camalka ilaahay dartii unbaad u samaysay, cid kaloo wax ku leh ma laha. ha lagaa sheegana ma ahayn, waxaad ku heshidna ma ahayn, ha lagugu ammaanana ma ahayn, ilaahay dartii ayaad u samaysay. qof walba camalkuu sidaa leeyahay ha ku baryi ilaahay. maxaa wacay camalka ilaahay dartii loo sameeya oo adigoo mukhlis ah, si ikhlaas ku jira aad u samaysid, maqbuul waa, ilaahay waa aqbalayaa. caqiidada ahlu sunna wal jamaacana waxaa ka mid ah acmaasha waa wanaagsan in ilaahay loogu tawasuli kara, lagu gaari kara, laguna baryi kara ilaahay subxaanahu wa tacaala. midka ugu horreeyey ayaa dhahaya anigu waxaan lahaa laba waalid oo waayeel ah aan waxba qabsan karin, oo ciyaal yaryarna waa ii joogeen, xaasna waan lahaa. waxaa caado ii ahayd in aan xoolaha ii joogay, xaynta ii joogtay, aan waqti hore keeno oo aan liso. hooyo iyo aabbe intaanay saaxanin in aan sii caanaha, intaanay gam'in ayaan casar dheerkiiba waxaan u keeni jiray caanaha. maalinba daaqii iyo cawskii ayaa ila fogaaday, waan soo daahay. markaan xoolihii soo celiyey ayaan imid iyagoo hurdaya. maxaan sameeya? waa caado aan bartay. waan lisay, markaasaan madaxoodii istaagay. bal waxaan leeyahay mana rabi in aan kiciyo. maxaa wacay? inta badan waayeelku ma helo hurdo, ma hurdaan. haddii ilaahay mar hurdo siiyo waxa waaye waa loo raaxeeyaa, waa la sii babiyaa, go-aa lagu sii hugiyaa, jabaqda iyo shanqartaa laga yareeyaa. soo ma garan? marka madaxoodaan istaagay anigoo sugaya bal markay soo kacaan un inaan siiyo, in ay iskood u soo kacaan iyaga. ilmihii yaryaraabaa halkaa ii taagan oo lugihii haysta, maradii ijiidaya. aabba caanaan rabna, aabbo waa gaajaysannahay, aabbo. waxaa ila xumaatay aabbi iyo hooyo anoonan siina caanaha inaan ilmahaygii u adeego oo aan wax siiyo. waxaan halkaa taagnaa ilaa waagu ka baryayey. ilmahana intaa way i baryaayeen, way qaylinaayeen. ilmihii wax ma aanan siinin. mar allaaliya markay soo kaceen ayaan siiyey hooyo iyo aabba. markaan ku hubsaday calooshoodii, caanihii aan ku hubsaday in ay dhergeen aan ku hubsaday ayaan ilmihii siiyey oo aan u lisay ayuu leeyahay. allah
eeg baarinimada ninkaa odaga ah markaasuu barya ilaahay haddii ilaahow camalka aan dartaa u sameeyey habeenkaa ilmaha aanan wax siinin reerkayga aan u diiday ilaa hooye iyo aabba aan dharjiye maahane yaa camalkaa dartaa hadduu ahaa ilaahow dhagaxaa naga fayd dhagaxii baa markiiba faydmaya laakiin maxaa wacay camalkaa camal wuxuu ahaa ilaahay aqbalay laakiin meel laga bixi karaya male kii labaadaa dhammaystiray ka labaadna wuxuu dhahayaa waxaa joogtay gabar ilma adeer aanu nahay gabar qurux badanna way ahayd markaa baahi ayaa qabatay dantaa u run sheegtay markaasay wax iga soo raadsatay in aan wax daymiyo markaasaan waxaan ku iri ilaa aad imekanaysid nafsadaada waa kuu baahnay adna waad ii baahan tahay gacmo isdhaafo gacalku ku jiraa aan isweydaarsano marka gabadha waxay u baahnayd 100 dirham ninkii marka wuxuu galay inuu soo raadiyo 100kii oo uu soo ururiyo soo ma garan gabadhii marka 100kii ayuu siinayaa mar alaaliyo markuu makansaday gabadhii oo uu rabo hawshiisa inuu bilowdo ayaa wuxuu arkayaa gabadhii oo jaraynaysa markuu la yaabay gabadhii iyo siday u ruxmaysa ayaa wuxuu ku yiri maxaa ku helay maxaa ku daaray maxaa dhacay waa ma wax kugu soo booday waxay leedahay waxaan ka cabsanayaa ilaahay ayaan ka baqayaa waan baqayaa bay leedahay ilaahay ka cabsaniyo ilaahay ka cabso oo amaanada ha ku furin si xaq darra ha ku furin ha furin ilaa xaqeedii in aad ku furtid maahane ha furin ninkii markiiba waa ka booday gabadhii lacagihiina wuxuu yiri qaado oo ku tag ilaahu camalka haddaan u sameeyey adiga dartaa haddaan u sameeyey oo ikhlaas uu iga ahaa ilaahu dhagaxan maanta naga fur dhagaxii uu dhaqaaqayaa haddana allahu akbar raqaabada ilaahay siday u wanaagsan tahay eeg kan saddexaadna wuxuu lahaa beer dad shaqaale ayuu kiraystay oo beerta uga shaqeeya wuxuuna kula heshiiyey miraha beerta ka baxay inuu wax ka siiyo shaqadii markay dhammaysteen ayaa dadkii shaqaale ahaa wuxuu siiyey qof walba wixii uu kula heshiiyey ilaa mid kamida shaqaalihii oo diiday maahane intii kale waxoodii wuu u oofiyey kii laakiin wuu saluugay wuu iska baxay ninkii uu ka tagay badarkii iyo masagadii muxuu sameeyey ma uunan dhihin war anaaba u baahanayo kuwan haddaad tagtay orodoo hortaada khayr allah ku siiye imood ma uunan dhihin wixiina ma aanu qaadanin laakiin wixii yaraa ayaa wuxuu sameeyey wuu u beeray beertii buu dhinac uga abuuray markuu u beeray wixii waa bateen sanooyin ayuu abuurayey markii dambe xooluu ku gaday loo geel ari wixii oo dhan ayuu ku iibiyey de wixiiba aad iyo aad u farabatay wuuna ka ilaalinayaa xoolihiisa inay ku khaldamaan oo ay ku darsamaan si gooni ah ayuu u ilaalinayay bal shaqaale gooni ah ayuu u sameeyey markii dambe xoolihii baa batay markaasaa waxaa buuraha gadaashooda dhulkii la deganaa meel ka yara fog ayaa wixii lagu kaydiyey xoolihii baa marka aad iyo aad u farabatay waayo dambe sanooyin yani 10 sano kadib meelaha ayaa ninkii yimid warniyo soo hebel maahid warniyo waa hadda ka hor waataan kuu shaqeeyey oo aan maaragtay xaqii aan ka tagay niyo xaqaygii baa maanta u baahnahay maanta gaaja ay haysa maanta waan baahnahay dhib baa ay haysta xaqaygii isii ilaahay ka cabso xaqaygii isii waad garanaysaa wuxuu yiri hebel soo maahid nakeen buu yiri khayr allah ku siiye marba hadaa timid buur inta aan tuu saaray oo dheer ayuu yiri buurta gadaasheeda eeg waxaasoo geela waxaasoo ariya waxaasoo lo-a shaqaalaha la joogay waxa kan maaragtaa dadkan soo ma aragtid waxa ka faraha badan kulli wada qaadu yiri waa xoolahaagiye ninkii markaasuu naxayaa wuxuu leeyahay warniyaho ilaahay ka cabsi xaqaygii baan rabaa war aniga waxaan rabaa shoodaydii kiilooyinkaygii masagada ahaa ama bariiska ahaa intii aan ku shaqaynayaan rabaa waa u baahnahay isii iga dhaaf ha igu ciyaarin qofka baahan laguma ciyaaro isii xaqaygii markaasuu yiri wallahi kugu ciyaari maaye xaqaan adiga iskale maalintaad ka tagtay ilaa iimaantan kuu kaydinay waan kuu abuuray waan kuu maaragtay waan kuu bedelo xoolan kaaga dhigay shaqaale iyo dad aaminiin aan kuugu dhiibay waan iska ilaalinayay xoolahaaga xaqa waan iska ilaalinayay maxaa wacay waxa weeyaan sharcigeena amaanada ilaalinaya ilaahay baana ilaalinaya
إلهي بان كبقايا إلهي بان اسك إلالينايا عذاب آخران كبقايا يا حق إنسان كون اسك إلالينايا وحن حقا يا أذن كو إلاليناي نينكي وكلا بدبتي نينكي إساقها حواليه انتو جيس كمري أيانو نينكي وحبو الريبين كل وضا كحيستي هدي سيدا إلهيو أن أسميي درتها أديك آودا أن أسميي نجح النجاقات انتي كلا نجحي واكا إلهي واقاضي سنة وذي ماشي وقصوبحين الله أكبر سيدا وين ولا ليال درسي أمرك وحونا بريا وامحي سمي عمل إلهي أديك كلي أدس الأكسونتيهين حريري دتكي كوجوي حريري ولا شاء آدم 10 سنة لحد لين حريري مانتا waxaad u xiriirisaa hal lagu jeclaado ma aha iyada ha ku jeclaatana ma aha aad xoogaha wax ka heshidna ma aha ya sumcadaada hagaajina ma aha ilaahay dartii u xiriiri maanta qof muslim ah waliba qaasatan qaraabadaada ah walaasha walaalka waalidka jaarkaaga maanta xiriiri ilaahay dartiina ku xiriiri amalkaas ha ahaado ilaahay dartii waxaan ku hubaa amalka marka aad xanuunsatid hadaad ilaahay ku tawassushid oo aad dhahdid maalinka aan heblaayo xiriiriyay walaashii xiriiriyay aan xiriiriyay abtigay aan walaa habaryartay xiriiriyay jaarkaygi xiriiriyay arinka maalintii aan sameeyay ilaahu darta haday ahayd ya darta hadaan u sameeyay amalka isaga ah ilaahu cudurka iiga caafi ilaahu awlaad igu sii ilaahu dhibka iiga qaad xaqiiqo waxa ah in laga aqbalayo محاوى أعماشا إخلاص وكجرو أذيقو أو مخلص نفس هذا النظيف تهي إلهي درتي أسميي يا أعماشا نوعا صوكلا إلهي وأقبلك مربع عملك هدو إخلاص يهي إلهي درتي كلي أسميسي أنو مخلوق كالي لكل هين إلهي وأقبلها وأنا أعماشي لو جعليها وأنا أعماشي إلهي لو هذا war awlaad laan baan haysay awlaad aan ku raadsano acmaash inaan wanaajino ya in aan acmaashina wanaajino in aan acmaashina ilaahay dartii inaga noqdaan aan qaraabada ilaahay dartii u xiriirino insaanka ilaahay dartii darisidii waa kala tageene aan jaarka u xiriirino ilaahay dartii ya ubadka u barbaarino ilaahay dartii kan dhow iyo kan dheerba aan u xiriirino ilaahay dartii إن عربكينا إلالينو دقيهنا إلالينو إندهنا إلالينو سنكينا إلالينو قف يقدم بإنان إلالينو إلهي درتنا أن أو إلالينو ولي أعماشا يضع أن إلهي أقول دوانو يا إلهي أقول دوانو أن عافمات كرهات سنو أن ماركتاي أولاد كرهات سنو دنبي داف كرهات سنو نلول وناكسن كرهات سنو يا نبت قلي إلهي أقرهات سنو إلهي وأقبل يا ولالا مركا مراقبة إلهي دائما مراقبة إلهي يا قلبي يانو كبحن إلهي إنو نأركي وحوال باو أوجيهي يعني لا تينا كبحن marka walaalayaal markaan isha wax ku eegayno dhagaha wax ku dhageysanayno carabka afka aanu ku hadlayno gacmaha aanu wax ku qabanayno lugaha aanu ku soconno qalbiga aanu wax ku qabanayno aanu wax gelinayno aynu ogaano ya muraaqabada ilaahay in uu noo jeedo noo dhow yahay na arkayo malaa'iguhu na arkayaan jirku na arkayo camera video in ayna duubayso ya oo aakhirana laga xisaabinayo aakhirana ay dhowdahay inta waa inaan laabta ku haynaa walaalayaal inta ayaan kusoo gabagabaynayaa caawa astawdicukum allah الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxay u gaajoonaysaa inaad dheregto waxay u daalaysaa inaad nasato waxay hooyo u ooyeysaa u ciilkaambinaysaa in aad faraxdo adiga video isawir la keenay oo internet iyo facebook lagu soo tuuray ha ka qaadanin diintaada taas diin ma aha ha ka qaadanin diintaada halka facebook yaanu diin ku noqonin google yaanu diin ku noqonin bal diintan wanaagsan islaamka ka qaada kitaabadiisa ka qaada oo culimadiisa warasatul anbiya ka qaada kuwa rabbaaniyiinta wax ka badan malaha caalamka luqad walbay ku hadlayaan luqadaadi hooyay ku hadlayaan ka qaado culimada dhexdhexaadka haysa
maanta haysa ilaahu ixsaanka ha ka dhuminin hooyo inta hooyooyina ixsaankaa sameeya ilaahu ha ka dhuminin sidaasaa la doonayaa jaarka inuu ahaado jaarka inama si ahay ogow ya waa wax jannada lagu gelaya haddana laakiin annaga waa isku caynaa waa isbisiini kii wadada qashin ka qaadayo xaaqayo nadiifinaya waa isbisiini shaqada isbisiini rasuulka xalkeena kaliya ma ahay salawaatu wasalaamu calayhi annaga kaliya arinteena ma xaliyee xayawaanka xataa wuxuu u yahay maxay xal buu u yahay sallallahu calayhi wasallam waana dadka muuminiinta ay leeyihiin kuwa alle iyo nabigooda rumaysan maalinka qiyaamo rumaysan oo qalbiyadoodu ay ku xasilayaan waa maxay dikriga ilaahay alaa bidikri noqdo adduunkan aad ka tagtid adigoo raali lagaa yahay mar allaaliyo markaad tagtid aakhirana jannadii hore aad ka geshid miyaadan rabin ilaa tigidkaaga waad wada tahay ku salliga rasuulka waa tigidkii aad ku geli lahayd jannadee ku salli maanta uu u baahan yahay caalamkan waa midda kaliya dhaqanka kaliya ee caalamka maanta xal u ah oo nacaybka iyo dagaalada iyo fakriga iyo kala tagga irdhowga qaxa maanta jira diinta kaliya xallin karaysa weeyaan wallahi haddaan si dhib u qaadan ha ha ha